waxay la ilimeynaysaa farxad darteed sababtoo ah waxay gashay kaalinta koowaad iyadoona ku guulaysatay 60 garaam oo dahab ah tartanka iqra ee xaafidaadka quraanka kariimka oo ay qabanaysay mu'assasada al-iqra ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho waxaana abaalmarin qaali ah la gudoonsiiyay 10 tartame ee kaalmaha ugu horeeya galay tartankani oo ka duwanaa tartamada caadiga ah dumar oo kaliyana ay ku tartamayeen laguna tartamayay quraanka kariimka iyo tafsiirkiisa ayaa in muddo ah soo socday maantay ayaana loo qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay taasi oo lagu abaalmarinayay 10 tartame ee kaalmaha ugu horeeya galay si gaar ahna 5 ugu horeysa xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeeyna Sumaya Maxamed Nuur oo kamid ahayd tartamayaasha ayaa ku daahfurtay aayadaha quraanka kariimka ee kalaamka Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا intaasi kadib Umar Abdullahi Ali oo kamid ah maamulka macahadka al-Iqra ayaa soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb gashay xafladan waxaan idin leenahay soo dhawaada qof kasta waxaan ku soo dhaweynaynaa mansabka iyo darajada uu meesha ku fadhiyo haday yihiin macaahidda ka soo qayb galay haday yihiin culamadii magaalada haddii ay yihiin ardadii waalidiintii gabdhihii xaafidaadka ahaa lajnadii muxuu ahaayey imtixaankan howlihiisii maalmahan ku soo jirtay dhammaan waxaan leenahay soo dhowaada ilaahay subxaanahu wa tacaala talaabta aad soo qaadeen fii miisaani xasanaatikum ilaahay subxaanahu wa tacaala ha yeelo soo dhaweynka gadaal Sheikh Dr. Al-Walid Ahmed Imam oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ee ka soo qayb gashay xafladan lagu abaalmarinayay guuleystayaashii tartanka ayaa goobta ka hadlay isagoona kula dardaarmay bulshada in si wanaagsan loo fahmo quraanka loona dabaqo quraanka waa nicma kubra nicma ka weyn ayna jirin islaamnimada iyo quraan qofkii ilaahay muslim uu ka dhigay quraan uu ugu daray wax nacmaha ilaahay uu bixilahayo taas ka weyn ma jirto Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku tilmaamay istilmaamo badan waxaana kamida ruux inuu ku tilmaamay ruux hadii la yiraahdo marka qofkii aan quraan haysan oo qalbigiisa uuna quraan haba yaraadee ku jirin ruux kuma jiro waa qof meyd marka qalbigii quraan uu ku jiro waa nool yahay qalbigan quraan ku jirana qalbi meeyta nuur buu ilaahay ku tilmaamay waanzalna ilaykum nuuran mubiina marka ilaahay barihiisan u carafno aan wax badan barino laylan nahaa aan ilaahay barino quraanka aan u akhrino ilaahay inuu sharta naga qaado fitanta uu naga qaado wadankeena uu dejiyo wadan maartay muslim oo haadi ah oo aamin inuu ka dhigo intaasi ka gadaal maama Faaduma Aadam Cali oo kamid ah macallimiinta quraanka dadka bara juhdi iyo waqti badan ku soo bixiyay ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsan yihiin sar u qaadista dumarka loo sameeyay oo mu'assasada al-Iqra ay ku dhaqaaqday waxaan ugu mahadcelinayaa kale macadul Iqra mu'assasada oo gabdhihii sar u qaaday farxadeena maanta lama soo koobi karo gabdhaha xaqooda إلهي وانكم هدلنا إن بدن ثم وحا أرغني مانت إن مجالك نلسيي حق قرآنك وحكا لو دري مايو مشايخ ذا وحول بينو دميسي كلية آد باهد أو قمنا مانت إسلايا وحيتا هاي ما دام قرآنك أنبرني علمي إن لبرتو أو نلبرو ومعاهد سيدي هذا قرآنك وددالين ay ugu dadaalaan gabdhuhu quraanka inay fahmaan macnaha uu xambaarsan yahay cilmina loogu daro sidii loo dhigayo quraanka si la mid ahayna
in loo dhigo macnihiisa. marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay xafladda ayaa goobta ka hadashay waxaana ka mid ahaa Sheekh Cabdirashiid Aadam Isxaaq oo ah ku-xigeenka Jamciyadda Quraanka Kariimka ee Soomaaliya, Dr. Cabdalla oo ah maamulka Jaamacadda Quraanka Kariimka, Maxamuud Cusmaan Maxamed oo ka mid ah waalidiinta ka soo qayb gashay xafladda, Sheekh Axmed Sulub oo ka mid ah maamulka Machadka Tartiil, Sheekh Cabdullaahi Carab oo ka mid ah maamulka mu'asasada Maahir, iyo Sheekh Maxamuud Xasan Nuune oo ahaa madaxii guddiga garsoorka tartanka. mu'asasatu Iqra ayaanu mahad celinaynaa majaalkan ay buuxisay oo quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala gabdhaha inay ku tartamaan oo xifdi maca tafsiir ah. waxaan leenahay jazaakumullahu khayr, horay u sii wada juhdigan aad bilowdeen, dadaalkaana ku sii dara oo sii badiya insha Allah ta'ala. Ilaahayna subhanahu wa ta'ala ha idin la garab galo. mutasaabiqaadka oo dhan way guuleysteen maalintii ay akhriyeen khatamaad kala duwan 114 suuradood oo quraanka oo ka kooban yahay. mutasaabiqaadku way guuleysteen maalintii ay akhriyeen 6200 iyo jajab aayado quraan ah ay khatimeen intaas soo jeero khatmo. mutasaabiqaadku way guuleysteen maalintii ay intaas soo khatmo akhriyeen 77,000 oo kelimo عدد كسي فربضان كلمات كقرآن كأه. متسابقات كوي جوليستين مركي إن بدن أي ختمين سدح بقول سدح يلواتن كن أو حرف أو قرآن كإله سبحانه وتعالى كمذا ختمات هل ختم معه ويجوليستين. runtii waxayna tusiyeen mu'asasadaas mu'asisiinteeda iyo macallimiinteeda dadka gacanta ku haya waxayna tuseen xaqiiqatan wax loo qiiroodo oo laga qiiroodo. waxayna tuseen takriimka ahlul quraanka, waxayna tuseen in aysan ahayn wax qabadku inuusan ahayn dhaqaale fara badan leedahay, laakiin waxayna tuseen in xurqada iyo waxa ku jira ay rumaysan yihiin inay yihiin asxaabul mabaadi. waxayna tuseen xusnul ardi qaabku ay wax noogu soo bandhigeen ee sida wax u bandhigayaan xafladaha adduunka ka dhaca meelaha dadka ilbaxa ay joogaan oo macnaha xagga sida wax loo ardiyo ku soo takhasusay ayaad moodaa inay u dhigahayaan. waxaan markaa maadaama ardigaas wanaagsan iyo dadaalkaas ay muujiyeen waxaan u mahad celinayaa anoo ku hadlaya magaca waalidiinta, aan u mahad celinaynaa mu'asisiinta mu'asasada Iqra iyo macallimiinteedu isku duuban. musaabaqaad badan baa la qabtaa waad ogtihiin, laakiin musaabaqa gabdhaha gooni oo inta aan ogahay waa Machad Iqra mu'asasatu Iqra qabata intaan anigu ogahay xasba cilmi. marka arrin aad iyo aad loogu baahnaa bay qabteen. waxaan leenahay culimada u taagan mu'asasatu Iqra jazaakumullahu khayral jazaa. culays weyn bay naga dejisay haddaan nahay mu'asasatul Maahir. marka hore mu'asasatul Maahir iyo mu'asasatul Iqra waa laba mu'asaso oo walaalo ah oo tacaawun xoog badan uu ka dhaxeeyo. waxaa marka hore nagula eedayn jiray macallimiinta kaliya had wax u qabataan macallimaadkii aaway. markii musaabaqadan la qabtay culays weyn bay naga dejiyeen xaqiiqatan, waxay noo naqdeen garabkeena midig. ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro. tartanka markaan qaadaynay lajnada 5 aan ahayn, lajnadii hore maamada hadda soo istaagtay maama Saciida markay quraanka akhrisay ay gashay waa wada qiiroonay. runtii waxaan idhi maamadan haddaysan kaalin gelin hataa waa in si gooni loo takriimiyaa. isma ogeen hadda Abubakar ilaahay baa ka dhawaajiyay wuxuu yiri shakhsiya quraaniya ayaan sanadkan u dooranay falilaahi alxamdu. marka sidaas ayaan u wada jecelnahay oo ugu faraxsannahay in dadkeena ay quraanka noo bartaan ay noo soo kacaan. waxaan oo dhan waa dhiirigelin, waa kicin laabta lagu kicinayo qofkii inuu u soo jeesto quraankan qiimaha badan leh oo ciziga badan leh yar iyo weyn. macaahidda sidaas ay ku dadaalayaan, niyadoodana way fiican tahay. waxaan waa dhiirigelin ma ahan qaayadii sidii culimada hore nooga sheegtay
inta dambana waa inoo dhammaystirmi doontaa. intaasi ka gadaal macalimad Saciida oo ahayd maamada kaliya ee tartanka ka soo qayb gashay ilaa 1998diina u soo adeegaysay Quraanka Kariimka ayaa ka hadashay dareenkeeda waxaana sidoo kale loo aqoonsaday sanadkan shakhsiya quraaniya iyadoona lagu abaalmariyay u adeegista Quraanka iyo juhdiga ay ku bixisay. waxaan ku mahadinaynaa Ilaahay awalan wa aakhira waxaan mahad u celinaynaa labaad معهد الإقراء وحلنا هاي جزاكم الله خير وحد أحد وحرتين وحد قبتين وحيا ربنا أو خيره مرك إلهي ينكب المريو وين ربي يوم من الأيام أنا قلت كتابك إلهي كنت معنا أركو لكن قصة مهرين إلا معهد الإقراء ويرى ما موينك مسابقة هاي ماذينا وحن دارين وفرحة آذوين waxaan soo badhay waxaan aqaanay waxaan ku faraxsanahay inaan balorta kitaabka Ilaahay ku tartamo waana ku tartamay Ilaahay ama had iska leh. sidoo kale Sheekh Cabdirasaaq Xuseen oo ah maamulka mu'assasada Al-Iqraa ee waxbarashada iyo horumarinta ayaa ka warbixiyay tartankan isagoona u mahadceliyay culimadii qaabilsaneed garsoorka tartanka iyo cid walba ee ka qayb qaadatay qabsoomidiisa. mu'assasadu Iqraa sanadkii labaad bay maraysaa tartanka sanadkii koobaad tartanka waxay isdiiwaan gelisay ilaa 130 arday waxa soo gudubtay 70 arday wareegii labaad waxa uu soo gudbay 30 arday 10 ilaa 20 30 waa la ikraamiyay alxamdulillah sanadkii hore sanadkan waxa isqoray ilaa 110 arday muqaabaladii kadib waxa soo gudbay 70 arday todobaatanka kadib 30 baa soo gudbay 30ka 10ka ugu horeysay alaabtooda halkan ku safan maantaan u jeedno alxamdulillah ilaahay mahadiis bifadlihi wa mannihi inta ku ahaatay waxaan u madcelinayaa culimadii tahkiimka waqti badan qaatay oo nala joogay dadka kala saaray annagoo u wakiilanay oo dhiibnay farta ka saarnay wareegii horena iqra hal qof baa kaga jiray wareegii labaadna hal qof baa kaga jiray afarta kale waxay ahaayeen culimada magaalada intaas waxaan raadinaynay in annagu aan la tuhmaysan alxamdulillah waan ku guulaysanay waxaan u mahadcelinayaa dadka ka qayb qaatay maalgelinta musaabaqada inay qabsoonto waxaan idin leeyahay musaabaqada sanadkii labaad bay maraysaa waxaan u baahanahay dadka ka qayb qaatay sanadkan iyo dad kale inay garab taagnaadaan sidii sanad walba u dhacdo aysan istaagin. ugu dambeyntiina waxaa si toos ah loo sii gudagalay bixinta abaalmarinada iyadoona ugu horeen la abaalmariyay culimadii garsoorka tartanka iyo dadkii ka qayb qaatay qabsoomidiisa waxaana intaasi kadib lagu dhawaaqay magacyada 10ka tartame ee kaalmaha ugu horeeya galay. waxaan u yeerayaa kaalinka 10aad mukarrar waa laba qof isla gashay waxaan u yeerayaa insha Allah taala Farxiyo Uthman Cadaawe Saynab Ahmed Cali waxaan u yeerayaa insha Allah taala kaalinka 9aad waxaa gashay Safiya Abu Bakar Umar kaalinka 8aad waxaa gashay Maryamo Idriis Xaaji Aweys فاطمة عبد الله أحمد حق دوسين دوزو مع فاطمة قام خباؤها وتمثلت قيم العلا ترعى كالين كل حد حاوير دونا إن شاء الله تعالى سمية محمد آدم يهدي الإله به الفتى كالين كسنادة كملا دونا إن شاء الله تعالى وعلى كل ستي طبعا قران الذهبة magaceedana waxa la yiraahdaa Sumayo Maxamed Nuur وتخلقت بالطهر دينا قيم waxaan yar doonaa kaalinka afraad waxay ku guuleysatay 20 garaan oo dahab ah waxa la yiraahdaa Saynab Khaliif Muhammad waxaan yar insha Allah taala kaalinka saddexaad Mumtaaz Husayn Muhammad kaalinka labaad waxaa ku guuleysatay نصيحة عبد الرحمن حاش هي جنة الدنيا ونفح رباها هي جنة وعلى كل قولة ستلحدا قران وذهبه
زينب عبد الله علي. وسعت بإخلاص يحف سراها لو أنها بين الجموع عرفتها في حشمة ugu dambeyntiina Zaynab Cabdullaahi Cali ayaa lagu sharfay in ay ku soo gabagabayso xafladda aayadaha Quraanka Kariimka ee kalaamka Allah. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. tartamada nuucaani oo kala ah ee lagu tartansiinayo dumarka ayaa mudan dhiirigelin iyo garab istaag xoogan maadaama lagu nooleynayo Quraanka Kariimka iyo barashadiisa. Wadani Cabdullah, Wadani Productions, magaalada Muqdisho. Wadani Productions.